oo isku xilqaantay in agaasinto shirweynaha noocan oo kale ah oo runtii aad iyo aad u qiimo badan aan aaminsanahay in wax badan uu bulshadeena ku soo kordhin karo wax badan ayaa lay innovation shirkan intii la qaban qaabinayay muuqaalo badan aad daawateen maanta madax badan aad idinla hadashay uu xataa ku jiro ra'iisul wasaarihii marka ma qabo aragtida ah innovationka in wax weyn laga dhigo oo la yiraahdo innovation loo baahan yahay lacaga la rabaa dawladda maxaa la yiraahdaa wax soo aruurinaysa in a simple definition innovation waa maxay يعني isku qaldina hadda invention ma aha innovation waay wax la ikhtiraacay iyo kama hadleen laakiin innovation muxuu noqonayaa innovation wuxuu ka bilaabanayaa just hal su'aal ina isweydiisid sida hadda aniga aan ku suganahay haddii aanan ku qanacsanayn bulshadeeda sida ay ku sugantahay aanan ku qanacsanayn ganacsigayga sida uu ku sugan yahay aanan ku qanacsanayn sidee wax uga bedeli karaa su'aashaas oo kaliya ina isweydiiso ayaa innovation ah kadib ayaa waxaa marka processkaas aad wax ku raadinaysid ayaa waxay noqonayaan innovative ideas in fikradihii ay wax dhalaan xal ay keenaan ayaa innovation la leeyahay sidaan ogsoonahay wax far badan oo bulshadeena qaybaheeda kala duwan ku saabsan oo waagi hore qaab traditional u shaqayn jiray ayaa aysan suurtagal ahayn in casriga hadda jiro oo qarniga 21aad ee la jaan qaadaan therefore waxay u baahan yihiin inay la yimaadaan hal abuur cusub tusaale waxaa kuugu filan qaabka annaga dugsiyada sare aan ku soo dhiganay hadda looma dhigto soo jaamacadaha dadkii naga horreeyay qaabkay u dhigi jireen looma dhigto sida ay ahaayeen ganacsigu siduu u ahaan jiray hadda ma aha waagi hore waxaa jiri jiray maqaayado oo day dalabka la yidhahdo soo ma silsilad beer la tusbaxa laga soo galo tiish tiri jiray laakiin hadda every other day magaalada waxaa laga furayaa ganacsi cusub that is innovation qaabka hore waxba kuma soconayaan maxaa haysaa waxbarasho dhismaha wax walba waxaa ku socdo hal abuur iyo isbedel marka wax walba oo la jaan qaadi kara caqabadaha hadda jira xallin kara fursadaha hadda jira kuu saacidaya inaad ka faa'iidaysto ayaa waxa ay yihiin innovation taa kuma dheeraanayo qof aniga ahaan maadaama aan ahay qof ka shaqeeya cilmi baarista iyo innovationka mar walba waxbaa ii muuqanaya innovation ayaa hadda aan idinka dhex arkaya ninka kabaha tola waxaa la yidhi markaa u timaadid waxa ugu horeeya ay dhihiisu qabanayaan waa kobaha gashanta qofka timajiraha ahna markaa u timaadid waxa ugu horeeya uu arkaayo waa timaha anaga cilmi baarayaal ahaan waxa ugu horeeya aan arkaynaa waa fursad iyo waxyaabaha innovationska jira waa laba midna innovative ideaskii dhaqan galay ee wax soo kordhiyay ayaan aragnaa sidoo kale waxaan aragnaa in fikrado magaalada marka aad maraysid waxaa arkaysaa waxkood in aanay ahayn kuwa socon kara markaasaa isweydiinaysa these people waxay u baahan sare u qaadaan hal abuurna ay la yimaadaan sababtoo ah qaabka ay wax ku wadaan waxba kuma soconayaan waxaan rabaa marka inaan u guda galo dhalinyarada iyo leadershipka iyo wax badanaa laga soo hadlay wax badanoo hadda ii muuqato dhalinyaro waaye inkastoo ustaadka igu horreeyey dhalinyaronimada uu da' ku xiray baasha unlimited waaye dhalinyaronimada inta adiga iska dhaadhicisid waaye markaa isdhiibta ayaa dhalinyaronimada ka baxaysa aniga iyo agaasimi siyaasi iyo hadda dhallinyaradaan ka tirsannahay waxaan rabaa marka aan gaaraanaynin oo la socda jadwalka iyo xaaladda jirta dhalinyarada Soomaaliyeed they are already dad innovative ayaa ka buuxa saaxiibkii ugu horreeyay oo ka hadlay ilaa saaka laga hadlayay markii magaalada hadda aad fiirisid businessyada hal abuurka ah ee hadda ugu dambeeyay ee shaqo abuurka dhalinyarada u sameeyay oo dhan wax hogaaminaya dhalinyaro waaye waxyaabaha cusub ee arkaysaan dadka wada waa dhalinyaro marka waxaa soo idlaaday dhihi jiray dhalinyaradu waa mustaqbalka dhalinyaro ma ahan laakiin maanta iyo berrida iyo shaq ayaga ayaa hoggaanka ahaa marka yaa la idinka dhaadhicinin
waxaan aad uga helay hal abuurada cusub ee hadda dalka ka jira muqdisho aniga wax badan aan ku noolaa waan ku dhashay waan ku soo barbaaray haddana iguma aysan soo dhicin domestic tourism meeqa ayaa nimo iyo jasiire iyo aadayda ka mida in badan oo naga mida soo maaha that is innovation qofku wuxuu arkay shaqo abuur u baahan yahay wuxuu ogaaday qaabka hore waxba kuma soconayaan basaa la kireysanayaa hal maalin jimcaha lasoo wareegayaa jawiga lasoo qaadanaya kadibna qasina ganacsigu ka sameeyey muxuu sameeyey marka qofka fikirkaasi la imaaday hal abuur waxaa ka mid a beeraha loo dalxiiska taga ee hadda magaalada ku yaala beerta nabadda daarusalaam whatever maalin walba mid cusub ayaa la furaa waxaa ka mid a agriculture-ka cusub beeraley fara badan ayaa joogta waagii hore roobka waxbaa lagu beeri jiray laakiin hadda dhalinyaro fara badan ayaa magaalada muqdisho gudaheeda waxyaabaha cunno ku soo saara marka wax walba oo dhibaato xalinaya isla markaana fursad taaganna ka faa'iideynaya ayaa waxay noqonayaan innovation dhalinyarada dood ayaa la geliyey laakiin nin baryahan dambe bulshada dhexdeeda caanka ah baraha bulshada oo sidiiq haybe la yidhaha waa taqaanaa soo maa sidiiq waa taqaanii soo maa sidiiq waa innovationkii oo qof ah muxuu ku yahay innovationku waxaa waaye dhibku haysto inaa xal u raadisid hadduu socon waayo balan b uu socon waayo balan c uu socon waayo balan d sidiiq wuxuu ka soo bilaabay shaaxuu soo iibiyey labadaayuu ka soo shaqeeyey wuxuuse soo qaban mala musqul xataa inuu kaliin jiro ka sheekeynayo laakiin habeenadan madaxtooyada ayuu mataqaanaa joogaa oo waxaa lagu casumayaa waaweynka ayuu la joogaa soo ma that is the kind of innovation anagaa u baahanna sababtoo ah yahay ku dhac iyo in aad go-aan geesinima qaadato qofkii ka cabsanaya maxay ii arki karaan fikirka ganacsi waa yani waa laga qurux badan yahay ama waa la igu caynaya ninka odayga aan ka sheekeynayay markii uu labadaayada ka furtay deegaankii dadka in badan waa la socotaan aad ayaa loogu caayay marka waa soo gabagabeynayaa marka innovationka aan ka hadlayna kaas waaye wax kale uma soo istaagin waxaan rabaa inaan bogaadiyo academic institutionska dalka oo waxaa socda baraaruga bulshadeena dhinaca innovationka ah in la asaaso xarun innovationka qaabilsan sida arkaan oo kale iyo in lasoo agaasimo shirweyne noocaan ah ayaa innovation ah sababtaa waxa ay ka shaqeynayaan xal u helidda caqabadaha hadda taagan iyo fursadda hadda jirta in laga faa'iidaysto waa bogaadinayaa aniga waxaan ka socdaa jaamacadda hormuud si lamida jaamacado badan oo dalka ka jirana waxa ay leeyihiin innovation hubs iyo research centers waxaan tusaale idinkugu filan in baraarug bulsho oo dhinaca innovationka ah uu jiro 5 sano ka hor ama 6 sano ka hor jaamacadaha xataa ma aysan lahayn guddoomiye ku-xigeen dhinaca cilmi baarista ah guddoomiye unbay lahaa jireen laakiin hadda maxay leeyihiin santaro ayay leeyihiin innovationka u qaasa aniga ka mida jaamacaddayda hadda waxaan u qaabilsanahay cilmi baarista iyo innovationka shakhsiyana mihi intaasoo xarumood ayaa xafiiskayga hoos imaanaysa jaamacad haddana waa la mid marka baraarug bulsho aad u wanaagsan ayaa jira innovation hubska fikradaha lagu ururiyo incubation centerska ah waxay door muhiima ka qaataan sar u qaadidda innovationka dalka laakiin kuma filna hadday ayaa wax badan laga taataabtay dowladda waxaa laga rabaa in ay fududeyso dhalinyarada markay hal abuur la yimaadaan in aanay shatiga ku dhibin soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu badan ee ganacsiga markaa iska diiwaan gelinaysa dhibka ugu badan laga maro shaxaad iska daba wareeg rafaad shatiyaa dhacay wadamada qaarkoodna si loo dhiirigeliyo hal abuurka iyo ganacsiga online ayuu qofka shatigiisa ku samaysan karaa laakiin annaga waa is ognahay soo ma wasaarad heblaayo iyo meel hebel laga daba wareegayo si marka fikradaha kulamada noocaana ka soo baxaya ay u miro dhalaan waxaa loo baahan yahay iskaashi annaga institutionadii jaamacadaha ahaan ardayda waxaan sii doonaa ee dhallinyarada tababaro skilliskooda inaan sare u qaadno dhiirigelino arkaanna waxaa laga rabaa in ay siiso space noocaana oo fikradooda ay kusoo bandhigaan caqabadaha looga doodo dowladdiina waxaa laga rabaa in ay shuruucdii fududeyso oo dhiirigeliso oo kulamada noocaana mataqaanaa oo kale ay bogaadiyaan ra-iisul wasaare inuu soo xaadir aadaan bogaadinaya bangiyada iyo ganacsatadana waxaa laga rabaa
fikradaha dhalinyarada inay maalgeliyaan soo marka circle-kaas isagaa isku xiran ayaa waxa uu keeni karaa in innovationka uu sare u kaco laakiin fikrado badan oo dhalinyarada halkan fadhiya ay qabaan ayaa waxa ay u dhintaan taageero la'aan meeqa dhalinyaro halkan fadhisa ayaa fikir ganacsi hadda ku taagan yahay ama hore uu ugu soo dhacay gacanta taaga bilis اللي هي مالجليا لقيها بقى قعدت تاجا وجدنا الأرض dadkaas u jeedaan dhamaantood waxay u baahan yihiin taageero u baahan yihiin taageero waxay u baahan yihiin arkaan oo kale iyo taageeraha innovation hubska annaga oo kale ah iyo kuwa bangiyada iyo kuwa dawladda marka waa soo koobaya jaamacadahan annaga waxaan diyaar u nahay dhalinyarada inaan ka saacidno wixii capacity building ay u baahan yihiin kuma xirna ardayda annaga jaamacadeena dhigata kaliya qof walba ay u furan tahay xarumaha nagu soo booqda koorsooyin ayaan diyaarinaynaa innovation ku saabsan qofkii fikir macquula wada oo investable ahna waxaan la raadin doonaa maalgelin marka competitionka aad u adag yahay waa inaa la imaato wax cusub fikrad cajiibaan kusoo koobaya oon aad ula yaabay niman dhalinyaro ah ayaa waxa ay fureen kiro suit ma aragtay sooma suitka la kireyna rag badanaa kasoo labistaa u malaynaa what is that adiga dukaan oo suud lagu kireeyo yani inaad ka xishootaa laga yaabaa soo ma fikradaha investable-ka ah waxa noocaas waay haddii aad tiraahdo laakiin dukaan shopping aan furayaa maqaayadaan furayaa waxaas horaa loogu daalay wax cusub ma haysataa wax cusubna hal qof kama imaadaan soomaalidu waxay balo ku dhigeen waa keligood socod waaye laba iskugu leexda saddex iskula fadhiista wax cusub la imaada xafiiskayga anigaa imaanaysiin qof walboo soomaaliya oo fikrad haya aniga ha yimaado dhalinyarada khaasatan odayaasha mayaya haddii investable ay tahay jaacad hormud ahaan iyo innovation centerkeena waa idinka caawinayna anaga keliyana ma ahan magaalada muqdisho waxaa ka jiro xarumo fara badan soo ma incubation hubs taynu marka ballanqaad boojo ah ma ahan anytime nala soo xiriira waxa ugu yaroon ka geysan karna intaas waay tareenadeena waa soo deynaynaa capacity buildings badan aan sameynaynaa insha allah intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa kulanka waxaa u rajeynayaa guul mar kale waxaa u mahadcelinayaa arkaan iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha aad iyo aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور محمد عبد الله الجانوني هذا يوم السنة هاي مركل مع عصرنا إلا